asalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin salaama meel walba waa dunida dacaladiisa ka joogtaan kusoo dhawaada Uma Masbel Cooking Channel insha Allah. Maanta waxaan noo wadaa digaag maasha Allah oo iyada dhan is wadata. Marka saan u sameeyay la socod wanaagsan asxaabta. Waxaan ku kariyay ovenka insha Allah. Saan u sameeyay la socod wanaagsan. Waxaan naga iloobina like-ta, subscribe, share insha Allah asxaabta kale la wadaag. Marka waxaa waaye chicken-tii waatana. Marka chicken-ta waan soo dhaqay biyo kululan si fiican ugu soo dhaqay. Waatana iyada intay diyaar ku tahay waxaan ku dari rabaa cusbo hal qaada, garam masala, paprika isagan hal qaada, soy sauce laba qaadan ka isticmaali doonaa, sanjabiil shiidan isagan hal qaada, toon shiidan isagan hal qaada oo olive oil saliid saytuun. Intaasaa marka aan kusoo shubanayaa waxaan kusoo shubayaa baaquli. Waa kana baaquligan kusoo shubtay. Waxaan ku daray hadda aan dib ugu daro meesha ii yeelin huruud insha Allah. huruudan aan raaciyay intaan idin sheegay kan baaquli ku shubtay huruud la raaciyay. Waxaan ku darayaa laba qaado oo soy sauce ah. Waan iska qiyaasanayaa waxba qaado kuma qiyaasin laakiin qiyaastayga maasha Allah I think laba qaado way ila eg tahay. Marka waxaan ku darayaa waxaa horaan sii raacsanaa hal qaado olive oil maasha Allah. Waatana waa isku soo qasay. Marka chicken-tii intaan kor ka marin koran ka turturay intaan waxaan soo qasay marinin waxaan u qaatay fargeeto waan turturay. waa taas waa turturaya meelaha hilibka badan uu ka saaran yahay ka turturay. marka waxaan marinayaa waxaan soo qasan kor ka marinayaa waatana meel walbaan ka marinayaa saan markaan kor iyo hoos ugu ka mariyo ku soo dhameeyo waxaan geliyaa bac ama weel isku daboola gashan kartaa. waxaad gashanaysaa fridge-ka waxay kugu jiraysaa 2 saacadood. 2 saac kugu jiraysaa. 2 saac ka bacdi maxay ahayd ovenka aad gelin kartaa. waatana waa ku soo dhameeyay. waxaan soo qaatay bac waataas waa ku xiray. waxaan sugayaa 2 saacadood maasha Allah. waatana waa ku soo bixiyay bacdi diyaar waay hadda. marka ovenka intaan gelin waxaan rabaa wax gudaha inaan ka gelgeliyo. waxaan inta ku haystaa basal baar ama green onion and parsley waxaan dhan ku dari rabo iyo waxaan kaloo ku dari rabaa parsleygaas iyo waxaan ku dari rabaa rosemary iyo barbaroonigaas meesha ii yaalo oo noocyahaas ah. intaasaan gudaha ka gelinayaa. intaasaan gudaha ka gelinayaa saa u gelinaya arka insha Allah. markaan gudaha ka geliyaan istikiina ku tali doonaa lugaha garbaha waan ka laabaa chicken-ta. maasha Allah waa isqabsatay. marka waa kaasa waxaan inta ku haystaa basashii oon soo dhaqay oo dhinacyadan waxaan ka jaray gadaal dambe. marka intaasaan gudaha ka gelinayaa basasha.
waxaan kaloo gelinayaa parsley waa kaasa iyo rosemary barbaroonigii maxaa la dhihi jiray aan gudaha ka gelinaya asagana waxaan soo qaatay 2 xabo oo istakiina meesha hadda maxay ahayd basashii iyo waxa kaliya waa xoogaa dilaac yar ee leedahay waan qabanayaa because chicken markay karayso waxaas dhan inay soo dhacaan aan diidayaa laba istakiin laan gelinayaa waa iska dhaafi kartaa laakiin aan saasaa jeclaa istakiinta dhawada way soo baxaysaa hilibka markuu karo iyadaaba iska soo baxayso markaasaa u qabato isla soo siimayso marka maasha allah saxanka ku karinaaye hoos baarar aan ka mariyey baarar yaraan mariyey waxaan kor ka saaray birta aan kor ka saarayna baarar aan mariyey iyadan dul saaray maasha allah 350 ilaa 1 saac iyo bar saaci barasuga waa taasaa maasha allah way soo baxday laakiin 20 daqiiqaan raaci rabaa lugtaas waxaan rabaa inay soo dhacdaba say u karta keliya gudahan koobsana inay karta marka 20 daqiiqaan waa ku celiyey 20 daqiiqaan sugay waa taasaa asxaabta qaaliga chicken markay karta iyada kuu sheegaysa lugti dhan way soo dhacda waa taasaa hadda diyaar waaye marka lugtu waa aragnaaye gudihii aan ka fiirinaa inay si fiican ugu karta qoryahan dhinacyada ka geliyeen waa ka bixinayaa waa taasaa maasha allah lugti iyada dhan asiibat maasha allah dhinacyadu way ka karta marka gudahan fiirinayaa waa hubaa inay karta hadda weli saas kuma daaynayo istakiintii horta marka hore ka bixinaya waa taasaa istakiintii way soo raacda taasaa waa taasaa waxaan gudaha ka geliyey marka meesha hilibku uu badan inay ka kartaan fiirinaya haddana ani waa iska hubiyaa inay kartay jikanta quruxda kore intaan fiiriyo kuma daayo hadii karin waa ku celiyaa waa taasaa diyaar waaye hilibka dhinacaas saas hadday ugu karta waxaa jikanta inteeda kale way karta maasha allah diyaar waaye hadda asxaabta qaaliga ka faa'iideysa wacan إن شاء الله وحسائيد وأدق معهم وحصاد جرسدي سالر وكنا سالر كينا بريس كانوا واركتين هاد كهرة انت نوع سوان أركن إن شاء الله وحد كفير سنة زاجانا الكو كجرا عبتان كازن وعبتان كي عمبها إيه بسباسكا ما شاء الله
asxaabta qaaliga mar walba ku soo dhawaada ama masbal cooking channel insha Allah la sii share garay asxaabtada.